Turkiga awoodiisa ciidan wax ka ogow. Saameynta militari ee dalka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemay, waxaana ugu dambeeyay ciidamada Turkiga oo u diray dalka Liibiya iyo kuwii ka soo horreeyay ee hawlgalka ka fuliyay waqooyiga dalka Suuriya. Turkiga oo sidoo kale ka mid ah ciidanka gaashaanbuurta NATO saldhigga aadka u ballaaran ku leh magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya, ayaa wargeyska The Global Firepower oo ah mid wax ka qora arrimaha militariga ee caalamka wax ku qiimeeya in uu yahay ciidanka ugu awoodda badan ee Bariga Dhexe. Ciidanka Turkiga ayaa kaalinta sagaalaad ka galay qiimeyn lagu sameeyay awoodda militari ee dalalka caalamka oo gaaraya 137 waddan, waxaana sanadkiiba la sheegay in ciidanka Turkiga ay ku baxdo lacag dhan $8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaanu ka codsanaynaa daawade inaad muuqaalka like saarto si aan u helno saaxiibo adigoo kale wanaagsan, una sheergalay asxaabtaada. Mahadsanid. Dowladda Turkiga ayaa sanadihii dambe xoogga saartay maalgelinta ciidanka kadib afgembigii doorashooday ee sanadii 2016, waxaana xukuumadda Ankara ay xiriir militari la yeelatay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Qatar iyo Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigga ugu weyn ee ku yaalla meel ka baxsan dalka Turkiga. Dalka Turkiga ayaa sidii uu qoray Global Firepower oo waxa uu ka awood badan yahay dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Masar, Iiraan iyo Israa'iil, Pakistan, Australia, Kanada, Sacuudiga, waxaana uu awood ahaan ku xiga dalka Ingiriiska. Awoodda ciidanka cirka ee Turkiga. Dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 80 milyan oo qof ayaa dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 42 milyan oo qof, waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda uu wargeyska ku sheegay 735,000 oo askari. Ciidanka sida tooska ah u dagaalgali kara ee Turkiga ayaa jariiradda The Global Firepower waxay ku qiyaastay 355,000 oo askari, halka ciidamada hoggaanka ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari. Turkiga ayuu GFB sheegay in ay ka mid yihiin 10 dowladood ee ugu awoodda badan caalamka, waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu sheegay 1,067 diyaaradood, kuwaas oo isugu jira noocyada kala duwan. Diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradooda waxay gaaraysaa 207, halka kuwa wax duqeeya ay iyaguna gaarayaan 207. Diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaaraya 87 diyaaradood, halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirkana ay gaarayaan 289 diyaaradood. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopterka ee militariga Turkiga ayaa tiradoodu dhan tahay 729 diyaaradood, waxaana 94 ka mid ah yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada loo adeegsado. Sidoo kale, Turkiga ayaa dhammaan dalka Ruushka ka soo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano Soho 400, kuwaas oo farsameeyay Ruushka si casri ahna loo farsameeyay. Awoodda ciidanka dhulka ee Turkiga. Ciidanka dhulka ee militariga oo kaalinta 7aad waxay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan ee caalamka. Taangiyada dagaalka ee Turkiga ay gaarayaan 3,200, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalka ay gaarayaan 9,500 oo baabuur. Ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaafiicda goobta oo loo yaqaano artillery oo gaaraya 1,120 ilaa 350 oo ah hubka ay Soomaalidu u taqaano BM-ka iyo nooca kale oo ah madaafiicda casriga ah, kuwaas oo iskooda u dagaalgali kara, tiradooduna ay gaarayso 1,272.
Awoodda ciidanka badda ee Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkii hore ka hor daaha ka rogay gujiskii ugu horreeyay ee lagu farsameeyo gudaha waddankaasi, waxaana uu sheegay in kuwo kale ay ka shaqeynayaan samayntooda. Ciidanka badda ee Turkiga ayaa leh 34 maraakiib oo lagu ilaaliyo xeebaha dalkaasi, 12 gujis, 16 maraakiibta dagaalka, iyo 11 maraakiibta ka hortagga miinooyinka lagu aaso badda hoostooda. Ciidanka badda ee Turkiga ayaa sidoo kale leh markab lagu magac daray Pinellas of Anatolia, kaas oo ah markab xambaara diyaaradaha dagaalka. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in marka laga gaaro sanadka 2022 ay si toos ah u hawlgali doonaan gujiska lagu farsameeyo gudaha Turkiga. Gujiskan ayaa awood u yeelan doona in hawlgalka ka fuliyo meelo fogfog